Salaamullaahi calaykum. Soo dhawaada saaxiibadeenna wanaagsan. Waxaynu kala maqnayn muddo badan, balse aninku aad baan idinku xiisay, idinku ma xiisteen. Maanta barnaamijkeenu waxa uu ku saabsan yahay dabeecadaha qofka sanguine-ka lagu yiraahdo af Ingiriiska ama afka qalaad lagu yiraahdo sanguine, afkeenana lagu yiraahdo qofka bulshaawiga ah. Waxaynu baranaynaa dabeecadaha uu leeyahay, dabeecadaha wanaagsan uu leeyahay, dabeecadaha xun uu leeyahay, iyo qofka bulshaawiga ah dabeecadaha lagu garto inuu qofkani bulshaawi yahay. Haddaynu ka hormarno dabeecadaha lagu garto qofka bulshaawiga ah, waa qof hadal badan. Inta badan qofkani waxa la sheegaa dhowr qof oo group hadaad aragto meel wada fadhiya, qofka hadalka badan leh ama sheekeynaya, sheekadu noocay dooniba ahaatee, qofkaasi ayaa waxa la yiraahdaa sanguine ama waxa la yiraahdaa bulshaawi. Qodobka labaad waa qof jecel dhaxgalka bulshada. Maxaynu ka wadnaa? Qofkani inta badan arkimaysid isagoo kaliya. Inta badan waxa uu jecel yahay inuu ku dhex jiro dadka ama bulshada. Qodobka saddexaad waa qof si fudud ku barta dadka. Qofkani inuu friends yeesho ama asxaab yeesho aad bay ugu fududahay, sababtoo ah maadaama uu qof hadal badan yahay, si yar oo dhib yar ayuu ku yeeshaa saaxiibo badan. Qodobka afraad waa qof nolosha inta quruxda badan la ka eega. Hadduu qofku bulshaawi yahay, nolosha inta quruxda badan ayuu ka eegaa, inteeda shidada iyo dhibka inuu ka eegaa way adag tahay. Waxa laga yaabaa mushkilad inaad u sheegto, laakiin mushkiladaas uu ku sheego faa'iido adiga kugu dhex jirta. Waxa laga yaabaa wax xun inaad u sheegto, balse isagu wax wanaag oo kale kaaga soo qaado. Qofkaasi ayaa la yiraahdaa bulshaawi. Haddaba waxa uu leeyahay dabeecado xun iyo dabeecado wanaagsan. Waxaynu ka hormari doonaa dabeecadaha xun ee uu leeyahay qofkaasi ama waxyaabaha uu ku liito. Qodobka koowaad waa qof aan nidaam lahayn. Waxa la sheegaa qofkani haddii aad aragto qolkiisa, meelaha xafiiskiisa iyo meelaha uu ka shaqeeyaba, inta badan maaha meel sidii loogu talagalay u nidaamsan, oo inta badan waxa isdhex yaala waxyaabaha uu haysto, haday buug noqoto, haddii ay noqoto guriga uu seexanayo, nooc walba oo alaaba waa isdhex taala. Gurigiisu waa bilaa nidaam. Inta badan qofkani nidaam ma raaci karo. Qodobka labaad waa qof ay ku adag tahay jalwadku. Inta badan qofkani ma yeelan karo wax joogteyn, haddii uu ugu talagalana way adag tahay runtii, waayo xiisihiisa fara badan. Xiisahaasina waxa uu keenayaa isagoo hawshan haya inuu hawl kale u xiiso, sidaasina kaga tagatan. Qodobka saddexaad waa qof xiisihiisu ka adag yahay. Qofkani xiisihiisu aad iyo aad buu uga adag yahay, oo waxa laga yaabaa shaqooyin badan inuu uga tago inuu mid kale xiiseeyay, taasina ay keento inuu horumar fiican sameyn waayo. Qodobka afraad waa qof jecel raaligelinta dadka oo dhan. Ibnu aadamka ama bini aadamka dhamaantii wuu jecel yahay ama uu fiican tahay inaad wada raaligelisaa, balse waa wax la gaari waayay. Qofkani waxa uu isku dayaa bulshada ku xeeran oo dhan inuu raaligeliyo, taasina waxa uu kala kulmaa wajigabax, waayo bini aadamku isku mid maaha. Qodobka shanaad waxa uu jecel yahay in uu ahmiyad la siiyo ama uu lagu taliyo dadka ugu fiican ee la jooga asxaabtiisa. Maxaynu ka wadnaa? Qofkani waxa uu jecel yahay in la buunbuuniyo. Inta badan waxa uu dadka ka raadiyaa atashan. Marka uu sheekeynayo waxa uu jecel yahay qofka loogu xiisaynta badan yahay inuu noqdo. Qofka bulshaawigi ma jecla inaad meelo kale eegto isagoo sheekada ku wada. Qodobka lixaad waa qof khatar ugu jira inuu balwado xun yeesho. Maxaan ka wadnaa? Qofkani khatar saa'id ugu jira inuu balwado xun yeesho, sababtoo ah la dhaxgalkiisa oo aad u fiican, hadalkiisa oo badan, waxyaabo badan oo u sahlaya inuu khatarahaas halista ah ku dhaco ama balwadaha xun yeesho. Qodobka toddobaad waa qof aan go'aanada u qaataa badana ay khaldanaadaan. Inta badan waxa la sheegaa qofkani go'aanada u qaato inuu ku cabiro emotionka ama xaaladda uu xilligaas dareemayo, taasina ay noqoto in go'aamadiisa inta ugu badan qalad noqdaan. Qodobka sideedaad waa qof aan dadka dhageysan. Qofkani haddii aad adigu dhageysato maanta dhan, isagu ku dhageysan maayo. Ma ahan xaasidnimo ama uqdadu ku hayo, ma taasi. sababta uu Allah u abuuray ama dabeecada Allah u abuurayba ah inuu san qofka hadalka ka dhaxgalo oo uu dhageysan inta badan. Qofkani waxa hadalkaysa marar badan isagoo hadalka ka dhaxgalaya. Waxaad u sheegaysaa mushkilad, waxa uu ku sheegay mushkilad noocaas oo kale bari isaga ku dhacday. Inta badan bini aadamkuna taasi ma jecla. Qodobadaasi waa qodobada uu ku xun yahay qofka bulshaawiga. Waxaynu garaynaa qodobada uu ku wanaagsan yahay. Qodobka koowaad
qofkan waxa u fudud la dhaqanka bini'aadamka inta badan waxa la sheegaa bini'aadamku in la dhaqmaa dadka qaarkood aad bay ugu adag tahay balse qofkani inuu dad la dhaqmo aad bay ugu fududahay runtii isbedelkana waa uu la qabsan karaa waa qof xaalad kasta oo soo wajahda isbedelka la qabsan karaa qodobka labaad waa qof honesty waa qof daacada inta badan qofkan waxa la sheegaa inay daacadnimadu ku badan tahay saa'idna daacadnimadu ku tahay balse nasiib darro isaga la khiyaameyn karo laakiin isagu way adag tahay inuu qof khiyaamoola noqdo una fiirsa asxaabtaada kugu xeeran haddii qof saasi ku jiro waa qofka ugu daacadsan ee aad xulan karto qodobka saddexaad waa qof aan cuqdad lahayn inta badan qofkan waxa uu aaminsan yahay wixii tagayna waa tagay wixii soo socdana lama gaadhin nolosha inta quruxda badan la qaado sidaas ayuuna ku dhaafaa wax kasta wayna adag tahay runtii qofkan inuu caloosha qof bini'aadama ku qabto ama qof xumeeyey uu sii daba raaraaco ceebihiisa qodobka afraad waa qof mutadawacnimada ku fiican ama in bini'aadamka la caawiyo aad ugu wanaagsan qofkan haddii aad group ku wada jirtaan ama aad meel wada joogtaan waxa laga yaabaa qofka ugu horeeya ee gacanta taaga ee yiraahda aniga waxa si qabanaya inuu noqdo waayo mutadawacnimada aad buu ugu fiican yahay runtii qodobkeena u dambeeya waa qof ay u fududahay waxa uu rabo inuu dadka ka dhaadhiciyo inta badan qofkan waxa la sheegaa waa qof aad iyo aad ugu sahlan tahay inuu dadka waxa uu rabo isagu ka dhaadhiciyo waayo waxa aad iyo aad ugu caawinaya hadalka badan sharaxaada badan uu ka bixinayo shayga inuu qofka ka gadayo taasina waxa ay keenaysaa inuu qofku ku qanco hadalkiisa aaminana waxa uu sheegayo haddii muuqaalka dhamaadkiisa soo gaadhay aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan rajaynayaa muuqaalkan inuu wuxuun ka anfacay intaanu ku kulmi doono mid kala mid waxaan igaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo